الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. خير الله سيو أنا نعكوي عمل فلا كنا وانا قاطع إلهي سبحانه وتعالى هاي نقديو مركنا haddii aan isxasuusino barnaamijkan maanta waxaan isugu imaanay 3 arrimood oo ah furitaanka sanad dugsiyeedka dugsiga, dhiirigelinta ardayda, dishibliinka, respectiga, ilaalinta waqtiga iyo buugga tarbiyada kaalimihii macallimiinta ay ka rabeen gaaray dhiirigelintoodii iyo shahaado guddoonsiintoodii, iyo tan saddexaad oo ah ardaydii dhammaysatay hingaada baratayna akhrinta iyo qorista qur'aanka kariimka. munaasabadaas ayaan maanta isugu imaanay. ani dhankayga taariikhaha buuggayga meel dahab ah ka geli doonto insha allahu tacaala. idinkana waalidiinta ay dhammaan ka soo qaybgalayaashana taa iyo mid lamid ah u rajeynaya. soo dhaweynta uu nooga hadli doono maamulka dugsiga Ludwika معلم عباس عبد الله. معلم عباس سلو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد وحن السلام يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله. هذا الله رسول بدن وحا شيغي مع عمر سوابها أن جوجنو halkaan maanta, taasoo ah marka ugu horeyso inaan ku faraxno xiritaankii dugsiga oo naga xirnaa halka bilood ee fasaxa aan ku jirnay ee semesterka ahaa, oo waxbarashadiina meeshii ay kasii socon doonto ilaa iyo sanad dugsiyeedka dambo hadduu ilaahay cumri iyo caafimaad nagu gaarsiiyo. tan labaad oo ah dabcan meeshu waxaan ugu talagalnay xaflad aan iyaguna loo dhigayo ardayda dhammaysay hingaada markaan dhahayno waxay dhammeeyeen in ay tababar ku qaataan alifka iyo dhammaanteed inay meel soo saaraan, ay hadda awoodaan hadduu alla idmo in ay aqbilaayeen. hadafka saddexaad oo ah in abaalmarin la siiyo arday wanaagsan ee ku dadaashay in ay bartaan tarbiyada islaamka ee sanad dugsiyeedka hore aan kusoo kordhinay waxbarashadeena. tarbiyada islaamkaasi arday badana waxaa jirta si wanaagsan oo bartay ee xafdiyey iyadoo ka kooban 26 su-aalood. 26 su-aalood haddii laga weydiiyo wax kasto ka jawaabi kara. taasina iyaguna inaan la siiyo abaalmarino iyo meesha waalidiinta la ogeysiiyo. hadafkeenii afraad waxa weeye sanad dugsiyeedka furmi doona insha allah heerka aan ka gaarsiisanahay hadduu ilaahayni, taasoo ah inaan kor u sii qaadno tayada waxbarasho qur-aan kariimka annaga iyo waalidka. waxaan aada ugu mahadcelinaynaa waalidiintii nagu caawiyey kulligood halkaan fadhiya ee nagu caawiyey cunuga hingaada dhameeyey inuu dhameeyo. ilan macallin keligiis waxba masnayn karo. soomaalida waxay tiraahdaa fartaan keligeed wejiga ma dhaqi karto, laakiin markii laisla wada keeno faraha wejiga way dhaqi karaan. taa darteed marka annagoo iscaawinay ee macallinkii iyo waalidkii ay iscaawiyeen